السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدير سوماليان iyo umada islaamkayba waa idin salaamaya meel kastoo aad joogtaanba waxaan doonayaa inaan wax yar ka hadlo reer Somaliland waxa u bilaabmay maxaan ku dhahay ololayntii baa bilaabantay ololayntii markay bilaabantayna waxa dhacaya wax badan oo qardajeexa iyo in been lagu ololeeyo beenaha maalmihii u dambeysay lagu ololeynayay waxa kamid ah calanka Somaliland baa la bedelay calanka Somaliland waxa jirta marar badan iyadoo loo dabaaldegayo 18 May in aad is oranayso dadka oo dhami waa maxay calanka nooca kale oo ay sitaan nooca kale ah ee ay sitaan waa maxay baad is oranayso liidinta doogada ah ayaa isu bedeshay marmarka qaar maxaan ku idhaahdayay brook ama color brook ay noqotaa way buuxaan shacab fara badan waa maxaan ku dhahay facebookyada ka buuxaan ayadoo moodo calanku inuu qofku calan kale sito onkii Somaliland ah taas ayaa waxa markaa laga dhigayaa inuu xusbiga wadani uu bedelay calankii Somaliland midabkiisii macni waa been cadoon loo cumaamadin waxa kaaga daran YouTube leedii ahaa taageerayaasha xusbiga kulmiya oo maxaan ku idhaahdaye ayaguna taa wadwada maanta soo bandhigaya calamadaas kalarkoodu isbedelay oo kale calanka waxa la soo dhigay asagoo Muuse Biixina huwan oo uu midab kale leeyahay waxa la helaya xaflado ciida ka badan oo reer Somaliland oo 18 May loo dabaaldegayo laakiin aad moodo calanku inuu kalar kala bixinayo horta waxa weeye waa been loo bareeray waxa taa kaaga daran inaan hadda mar dhaway daawanay wuxuu soo dhigaya calamadaas uu leeyahay dadkaas marka waxa jirta ninka la yiraahdo raamax miyaa la yiraahdo oo asagu calankaas sita calankaas oo banaanka taagan oo le calankaas waa calankii Somaliland laakiin dhexda laga geliyay magaca Somaliland marka wuxuu leeyahay kani kii laakiin saxda ah waa ka halkaas sugan sababtu tahay calanka Somaliland de magac kuma qorna Somaliland la yiraahdo caadiyankiisa ee tawxiidka ku qoran laakiin calankan waxa uu ka buuxaa umada reer guriyaha reer Somaliland oo dhan anigu calanka waxaan haystay muddo 3 sanadood ah waxaan ku jiraa sawirro aan ku jiro ayuu ku jiraa ano 18 May jooga buu ku jiraa caruurtayda oo sidata buu ku jiraa marka waa calan ka Somaliland laakiin Somaliland magaca dhexda laga geliyay magaca Somaliland dhexda laga geliyay calanka kaasa waxa la doonayaa in la yiraahdo maaha kii saxda ahaaye waa ku ay soo samaysteen waxa weeye in la ololeeyo ma way fiicantay laakiin in been lagu ololeeyo ma qurux badna ta kale waxa la leeyahay oo dad badan leeyihiin xusbiga maxaan ku idhaahday wadani waxa uu wax ka sheegaa ciidamada Somaliland xaqiiqada dhabta ah ee qarsoon ee la doonayo in lagu qariyo taa waxa weeye ciidamada Somaliland xusbi reer Somaliland iyo qof shacab reer Somaliland oo weeraray toona ma jiro laakiin waxa jirta in wax la iska weydiiyo ay tahay in wax la iska weydiiyo sababta keentay dhibaatadii dhacday sababta keentay in ay ciidamada gawaadhida ciidanku watay dagaalkii oo saacad aan socon ay batroolka u goosatay sababta keentay in dagaalkii oo saacad aan soconin ay ciidanka rasaastu ka go'day oo maxaan ku dhahday khashar laga waayay maxaan ku dhahay qoryihii ciidanku sitay hubkii ciidanku sitay waxa rasaas tiray qoryihii ciidanku sitay taas ayaa la rabaa in laga jawaabo taasaana lagu qarinayaa ciidamada maxaan ku idhaahdayay ciidamada iyo la aflagaadeynaya ciidanka Somaliland xusbi reer Somaliland iyo shacab reer Somaliland toona waxba kama sheego ayaga loo hadlaya maxaa sababay in intaas soo boq ciidana laga qabto
maxaa sababay inuu ciidanku maxaanku idhahday hubka goosto maxaa sababay inuu gawaadhidu batroolka goostaan taasaa jawaabteedii maqan tahay taasaanay ahayd oo weliba ay maxaanku idhahay mucaaradkuna ka dhowrsadeen shacabkuna ka dhowrsadeen laakiin hadda waxay u eegtay inuu kulmiya noqday hashii geela cunto cabaatay ayadoo la og yahay wixii dhacay cidina aanay kala xisaabtamin la dambebesay laga aamusay inay ayagu ku ololeeyaan ciidan baa yaa la taataabtay waa wax khalada weeye waa qiiqisku qarin iyo saala muuqato oo la aas-aasayo waxaan ugu baaqayaa maxaanku idhaahdayey saxaafadda somalilan inay soo fadhiisiyaan intaanay doorasha dhicinna shacabka loo caddeeyo wixii dhacay ma waxaad sugaysaa inay ummadda reer somalilan soo celiyaan xusbiga xadkii somalilan farihiisa ka baxay ee hawadii somalilan farihiisa ka baxday ee magicii somalilan ee shirkadaha iyo dayuuraduhu ay ku shaqaynayeen maxaanku idhahdayay ka baxeen farahooda ka baxeen kaa waxa soo celinaya oo rabaa waxa weeye qof aan qarannimo iyo dowladnimo midna aan muraad ka lahayn laakiin shaqsi raba ama reer raba ama guruub raba sidaa aawadeed shacabka reer somalilan ee dhowrsaday ee aamusay ee maxaanku idhahday wixii dhacay aan waxba ka soo qaadin in la qujeeyaa ma qurux badna ayadoonay ahayn in dee macnii laysku saamaxa may ahayn in lasoo fadhiisiyaabay ahayd ilan wixii dhacay way dhaceen laakiin sababta bal keentay in la isweydiiyaabay ahayd marka qofka doonaya inuu soo celiyo maxaanku